إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نفول بيد منيسا أو جيرد وعيد منيسا ويلك حنوسنا يا ولالك محمد هذا خلص إسبتالك سوعين ساعات كهر ساعات دي بركوران كصوتي جيردي زيادة يسوع شيئا إلهي كتاب كيسك عند بدك الله كسي إن شاء الله أسوء صلاة كنا أو صلاة الدب بالله وميركيس صوفينا. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaa goor dhoweed lasoo wariyey geerida maxamed xasan warsame oo ku magac dheer qaxbayste kaasi oo in muddaha ku xanuunsanaya mid ka mid ah cisbitaalada waddanka koonfur africa ama south africa. haddaba qaxbayste ayaa in muddaha xaaladiisa caafimaad ahayd mid allow sahal ah kadib markii uu maskaxda dhiig badan uga furmay isla markaana uu ahaa qof sariir kusoo urursaday iyadoo ay la tacaalayeen dhaqaatiir ku xil dheer takhasusna ku leh xanuunada kala gedsan ee markaasi soo food saaro dhanka madaxa haddii ay noqon lahayd dhiigga maskaxda dadka uga furmo. qaliin lagu sameeyey ayaa waxaa qaxbayste lasoo warinayaa in uu aad markaasi xaaladiisa ay ahayd mid kasoo reynaysay oo la dareemaya in waxoogaa uu kasoo kabanaya xanuunkii aad u hayay oo xitaa sariirta saaray kuna qasbay in uu hadalkii gabo iyo dhaqdhaqaaqa guud ee jirka. maxamed xasan warsame oo ku magac dheer qaxbayste oo xaaladiisa uu gacanta ku hayay alla subxaanahu watacaala ka sokow aruush oo ka mid ah dhallinyarada aadka looga yaqaano baraha bulshada ee social mediaha gaar ahaana tiktoka ayaa goor dhoweed waxa uu instagram-ka bartiisa soo dhigay qoraal kooban oo uu ku leeyahay maxamed xasan warsame oo in muddo ah ku xanuunsanaya cisbitaalka ayaa galabta alla subxaanahu watacaala naga jeclaaday dadaal iyo duco aan u wadnay kadib nolosha jaanis labaad way u siin weysay qabrigiisa allaha u waasiciyo kitaabkiisa gacanta midig allaha ka siiyo buu yidhi. caruush oo isaguna markaasi aad uga mid ah dadka muxsiniinta ah aadna oo la socday kagana warqabay xaaladiisa caafimaad qaxbayste maadaama waddankaasi koonfur africa inta badan ay dadku intooda badan ay aad markaasi ay u eegaan haddii ay noqon lahayd arrimaha dhanka caafimaadka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa maadaama waddankaasi uu yahay waddan shisheeye sidoo kalena ay wanaagsan tahay in qofba qofka kale uu ka warqabo xaaladiisana uu la socdo. qaxbayste aad ay u garanayaan dad badan oo social mediaha aad u adeegsaday qaarkoodna baraha bulshada ay iskala soo muuqanayeen. tiktoka ayuu markaasi kasoo muuqan jiray ka hor inta uusan xanuunsan oo xaaladiisa ay noqon mid markaasi nolol iyo geeri u dhaxaysa. qaxbayste ayaa haatan lasoo warinayaa in ugu dambeyn uu galaaftay xanuunkii markaasi ka haystay dhanka madaxa dhiiggaasi kaga furnaa iyo xaaladii adkeed ee uu ku jiray ee sariirta uu la jiifay. haddaba aruush oo aad u qiiraysan sidoo kalena ilmadu ay ka qomanayso oo aadna markaasi isaga isku calool xumeynayo aadna u dareemaya xanuunka ay leedahay geerida iyo qof markaasi aqoon dhow aad u leedahay in lagu soo sheego geeridiisa ama adigu aad aragto in uu qofkaasi dunida u cileeyey xanuunka ay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay iyo in maanta dunida aysanba wax micnaha ku fadhin oo qof weliba uu sugayo godkaasi halka mitar ah ee qabriga ah halkaasi uu kaga horeeyo acmaashiisa iyo wixii dunida uu ku beertay iyo sida uu alle ugu dhowaa oo lagu xisaabinayo halkaasi. alla subxaanahu watacaala waxaan uga baryanaa walaalkeen in uu u naxariisto jannadiisa firdowsana uu ka waraabiyo qabrigana u waasiciyo sidoo kalena uu markaasi alla subxaanahu watacaala qabrigiisa markaasi uga faydiyo amaba uga baneeyo daaqad ka mid a daaqadaha jannada isla markaana halkaasi uga dhigo beer ka mid a beerta jannada. alla subxaanahu watacaala dunuubtiisa ha dhaafo kitaabkiisa gacanta midig allaha ka siiya ayaan leenahay. innaguna run ahaantii duco ayaynu markaasi isku leenahay oo qofka muslimka ahi waxa qurux badan oo la gudboon in walaalkii in mar waliba uu ducada uu markaasi la garab istaago alla subxaanahu watacaala nooga baryo in qofkaasi dembi dhaaf aad u badan uu siiyo.
qaxweyste haddaba waxa uu soo ahaan jiray inta uu dunida joogay qofba camalkiisa ayuu leeyahay. waxa uu inoo xaqiijinayaa aruush in markaasi saacadihii aynu kasoo gudubnay ama maalmihii ugu dambeeyey inuu kasoo kabanaya xanuunkii aad u hayay, sidoo kalena uu ahaa qof soo kabanaya oo xitaa hadalka isku dayaya oo xitaa maskaxdiisa ay si in yar tartiiba usoo laabanaysay. qur-aanka isaga qudhiisa uu isku akrinaya in alla subxaanahu watacaala weydiisanayo caafiyo oo xanuunkaasi alla subxaanahu watacaala dembi dhaaf ooga dhigo, fursad lawaadna alla uu siiyo. hase yeeshee ugu dambeyn qaxweyste waa uu geeriyooday. aruush waxaanu markaasi isna u rajeynaynaa sidaasi wanaagga iyo walaaltinimada ay ku dheehan tahay uu garab istaaga ugu muujiyey walaalkiis, in alla uu ajir fara badan ka siiyo. haddaba arrinta aadka u xanuunka badan ayaa waxay tahay qof markaasi aad isugu dhoweydeen oo run ahaantii muuqiisa aad garanaysay, cilaaqaad weydin ka dhexeeyey, hal gobol aad isla joogteen oo geeridiisa mar qura lagu soo sheegay. taasi wax ka xanuun badan ma laha ayaan isleenahay, laakiin waa halka loo socdo. waxyaabaha aan laga hortegi karin ay ka mid tahay geerida oo qof weliba maanta dunida jooga uu og yahay in uu maalmaha ka mida alla uu oofsanayo. haddaba aruush waxa uu ku celcelinaya in ay aad u qurux badan tahay, weliba dadka qurbaha jooga uu aad ugula talinaya in kelinimada ay ka fogaadaan oo ay isku dayaan bal in aysan hal meel oo qura ku noolaan iyaga oo keli ah oo aan ehel, qaraabo, asxaab ama reer aanu ka agdhoweyn. taasi waxay ka saacidaysaa qofka in xaaladiisa lala socdo, in laga warqabo in uu helo qof markaasi garabkiisa istaaga marka uu xanuunsado ama xaalad aad u daran ay soo food saarto. waa mid ka mid a waxyaabaha qofkaasi markaasi aanu leenahay, waxyaabaha mar waliba la gudboon qofka. aruushna uu aad uga digay, waxa uu aad markaasi ula xanuunsanaya xaaladda walaalkeen oo uu sheegay in muddaa haddee qofka waa uu iska shaqaysanaya. dhalinyaro ayaa layahay, qurbaha ayaa la joogaa. qurbaha marka la joogana run ahaantii ehelkii qofkii alla subxaanahu watacaala u qadiray in qurbaha uu tago, waxaa laga yaabaa inteena badan in eheladeena iyo qaraabadeena iyo reerkeena iyo faamiligeena inta badan in aynu ka dheeraanay oo aynu joogno meel cilaa. waa ay qurux badan tahay in isha lagu hayo goobta adiga aad joogto, xaaladaada. mid iyo laba asxaab aad isku dhowdihiin in aad haysan karayso ama aad leedahay si ay kaga warqabaan, waana arrin aad u xanuun badan. waxa uu sheegay in mar qura lagu soo booday qaxweystay, isagu ahaa qofkii ugu dhowaa la socday xaaladiisa, cisbitaalka kusoo siyaaranaya, dhaqaatiirta weydiinaya xaaladiisa hadba halka ay wax marayaan. goor dambena walaaladii iyo eheladii iyo qaraabadii ay xitaa hooyadii oo Soomaaliya joogto ay iyadu la soo xiriireysay oo ay u duceynaysay aruush in ilaahay ajir ka siiyo, isla markaana ay sheegtay in hooyadii ay tahay ama qof walaalkii oo Soomaali ah uu aad markaasi xaaladiisa oo la socday, isla markaana taasi hooyadu ay aad markaasi arrintaasi ula damqanayso oo muuqaalo badan oo faafinaya ninka la yiraahdo aruush uu ku muujinaya sida ay u wanaagsan tahay walaaltinimada iyo Soomaalinimada, iyo in mar walba midka kale uu run ahaantii wanaag, ixtiraam iyo kalgacayl iyo walaaltinimo u muujiyo, iyo kalgacayl aanu la koobi karin oo xadaafa. alla subxaanahu watacaala ayaanu uga rajeynaynaa in alla subxaanahu watacaala naxariistiisa janne uu siiyo, ugu deeqo walaalkeen, maadaama uu dunida imika uu ka hijrooday, isla markaana aha halkii markaasi loo badnaa uu aaday maalmaha ka mid ah. innaga waxaa xaqiiqa ah hubaal ah in aniga adiga iyo inta markaasi nala mid ah in dunida sidan ay nagu barordiqi doonaan dad badan oo dunida aan u cildeen doono. waad mahadsantihiin. subscribe inoo saar channelkan haddii imika uun aad kusoo biirtay, like garee muuqaalkan iyo muuqaalada ka dambeeya. haddii ay buweyne raalli ka noqdo, waxaan rajeynaynaa in aanu kusoo gudbino halkan xaqiiqooyinka dhabta ee Soomaalida ku saabsan.